Andrew Tate aftahan afkaartiisu caddahay isagoo Kiristaana ayuu qiray in Islaamku yahay xaqa iyo xalka dunida maantana waa kan tukanaya salaadaha Ilaahay ku waajib yeelay ummadiisa waxaana la soo warinayaa inuu qaatay diinta Islaamka kolkii uu booqday masjid ku yaal magaalada Dubai muuqaalada ayaa muujinaya Andrew Tate oo salaada la xirtay feeryahan Muslim Bakistaaniya socdaalkiisii Imaaraadkuna wuxuu u ahaa hadiyad qaaliya Romanian Lee ayuu ka duulay isagoo Masiixiya waxaana shahaadada loogu qabtay Dubai feeryahanka kickboxerka reer Mareykan waa ninka dharaar cad reer galbeedka kaga soo horjeestay siday ugu fasahaadeen qoomuluudnimada iyo dhaqamada xunxun waxaana la xiray guud ahaan barihiisii bulshada goortii dadkiisii ay kula coloobeen ka gilgilashada anshaxumada laga roonayaasha iyo feministka ama sinaanta ragga iyo dumarka aftahanka afkiisa la xiri waayay waxa lagu eedeeyay inuu ku xadgudbay xuquuqda dumarka una janjeero muslimiinta taas awgeed ayayna reer galbeedku cunsuriyad iyo cadaadis ku saareen fadlan like saar muuqaalkan haddaad khayrka jeceshahayna u sheer garee saaxiibada mahadsanid muddo kooban ka hor dadkoo dhan maysan wada aqoon Andrew Tate balse iminka waa kan ugu caansan iyo midka loogu hadalhaynta badan yahay internetka waa feeryahan hore oo u dhashay dalka Mareykanka wuxuuna bilada ka soo hooyay feerka iyo laadka isku dhafan ee MMA-da loo yaqaan waana maalqabeen ay qasnadiisa ku jirto 40 milyan oo dollarka Mareykanka saameyntiisa waxa la dareemay markii dumarka ay isku seegeen doodihii uga hor imanayay feministka oo ah dhaqdhaqaaq ay dumarku ku doonayaan xaquuq ka badan midda uu ninku leeyahay wuxuu kaloo ninkani uu ka gilgishay fasahaadka ay dunida ka wadaan laboodka isu galmooda iyo dumarka wax ka doona balse culayska ugu badan ayaa ninkan loo xambaariyay markii uu sheegay in diinta Islaamku ay xal u tahay dhibaatooyinka dunida ka aloosan waxaana hawada laga bixiyay akoonadiisii YouTube-ka Facebook iyo Instagram-ka Andrew Tate inkastoo uu markaa Kiristaan ahaa haddana waxa ka muuqatay inuu daraaseeyay oo u dhabagalay oo uu wax ka bartay diinta shariifka ee Islaamka isagoo maalinta Islaamka ka hadlayana wuxuu yiri haddii aan diin sharad ku geli lahaa xaqiiqdii Islaam ayay noqon lahayd sababtoo ah waxaan aaminsanahay inay tahay diinta dunida lagu maamuli doono I can walk through London with a t-shirt saying Jesus is gay marba haddii aan London ku dhex lebisto funaanad ay ku xardhan yihiin hadallo loogu gafayo Nabi Ciise calayhi salaam cid wax yeelaysa ma jirto haddaanse ku gardaroodo Nabi Muhammad sallallahu calayhi wasallam meesha aan joogo ayaa la igu dilayaa maxaa yeelay muslimiintu waa ay jecel yihiin waana xushmeeyaan nabigooda warbaahinta caalamka ayaa ku baraarugtay muuqaal laga duubay Andrew Tate oo ku tukanaya masjid ku yaal magaalada Dubai wax yar kadib markii uu soo islaamay alle ayaa hanuunka leh waxa la soo warinayaa in Tam Khan oo ahaa feeryahan Muslim Bakistaaniya oo ciyaari jiray MMA-da oo Andrew Tate ku qanciyay inuu qaato diinta xaqa ee Islaamka muuqaalka oo Twitter-ka lagu baahiyay ayaa lagu yiri Andrew Tate dhammaan waxa laga mamnuucay baraha bulshada waxaana la barayaa sida loo tukado salaada isagoo Dubai ugu yimi saaxiibkiisa ugu dhow arintaas oo ah mid xiiso leh wargelin muhiima bishaaro Soomaaliyay qof walba ku nool dalkeena hooyo ama Canada Mareykanka Yurub Asia ama Afrika inteeda kale waxaan idin haynaa fursad ganacsi oo ay idin soo bandhigayso shirkadda weyn ee laga leeyahay wadanka Mareykanka ee Forever Living haddaba ma kugu habboon yahay ganacsigani fadlan isweydii su'aalahan ma tahay qof shaqeeya laakiin dhaqaalaha soo gala uusan ku filayn ma tahay hooyo jecel inay shaqaysato iyadoo ubadkeeda la joogta gurigeeda ma tahay qof ku haminaya inuu ganacsi sameeyo laakiin duruufuhu ay u diideen shirkaddani waxay ku haysaa fursad ganacsi oo aad dhaqaale aad u kooban ku bilaabi karto inaad ganacsigan bilowdo kuma xirna meeshaad joogto waayo adduunkoo dhan ayuu xarumo ku leeyahay sida North America Yurub Aasiya Afrika iyo waddankeennii hooyo dhaqaalaha ugu fiican ee aad ku samayn karto dalabka ugu horeeya waa $398 waa markaad joogto Soomaaliya haddii aad joogto waqooyiga Amerikana $450 ayaad ku bilaabi kartaa ganacsigaaga diiwaangelintu waa lacag la'aan waxaase qasaba inaad haysato dhaqaale yar ee aad ku dalban doonto badeecadaada
manager Cusmaan wuxuu ku dhex yeeshay shirkadda Forever Living ganacsiga ugu ballaaran Soomaalida dhexdeeda, wuxuuna caawiyay dad badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo gaaray isku filnaansho maaliyadeed isagoo ku mutaystay abaalmarino waaweyn oo qaali ah. haddaba haddii ay ka go'an tahay oo tahay qof mas'uul ah oo aamin ah, daacada doonaya inuu shaqaysto, awoodna u leh inuu dalab sameeyo, fadlan wac WhatsApp number +1 41 65 79 80 53.